laga soo bilaabo qarnigii 14aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad imbaradoriyadii Cismaaniyiinta waxa ay maamuli jirtay qaybo badan oo kamid ah Balkaanka. Dhulka ugu muhiimsan oo ay ka talin jirtay waxa kamid ahaa kuwa maanta loo yaqaano Bosnia iyo Herzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro, waqooyiga Macedonia, ee qaybo kamid ah Croatia iyo Slovenia. Dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa iyo bilowgii qarnigii 20aad saameyntii dawladda Cismaaniyiinta ayaa hoos u dhacday. Inkastoo ay daciiftay, haddana wali waxa ay ahayd mid ka talin jirtay dhulkaas. qarnigii 20aad sidoo kale waxaa qabsaday oo la wareegay qaybo kamid ah dhulkaas Austro-Hungary, waxayna maamuli jirtay qaybo badan oo kamid ah galbeedka Balkaanka oo ay ku jireen Croatia, Slovenia, Bosnia iyo Herzegovina. kadib markii uu dhamaaday dagaalkii Balkaanka ee socday intii u dhaxaysay 1912 ilaa iyo 1913 waxaa meesha ka baxay imbaradoriyadii Cismaaniyiinta iyo Austro-Hungary kadib markii lagu jabiyay dagaalkii koowaad ee adduunka.